kulankan ay isugu yimaadeen bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ayaa waxa goobjoog ahaa qaar kamid ah madaxda Soomaalida ee laga soo doorto gobolka Minnesota kuwaas oo dhamaantood sheegay in ay garab taagan yihiin qoyska Igraan Tahliil. kulankani oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa waxa baaq loo diray madaxda ugu sareysa dalka Soomaaliya iyo shacabka in aan laga harin kiiska Igraan Tahliil oo ka tirsaneed nabad sugidda Soomaaliya. dadkii ka hadlay munaasabadda hadalladooda waxaa kamid ahaa haddaan nahay jaaliyadda North America Igraan Tahliil Faarax ama inaan meydkeedii aan helno ama in aan helno ayadoo nool labadaba way ku qancayaan family-gii oo gabadhaas ka baxday ummadda Soomaaliyeed ka baxday gabar waxay ahayd da'yar oo u adeegaysa qarankeeda waxaan raadinaynaa waa cadaalad anigoo ka wakiil ah qoyska qaraabada familka mar labaad waxaan idin leeyahay dhammaan duubabka dhaqanka waxgaradka odayaasha soo dhawaada kulankana waa noo furan yahay waana mahadsantihiin waxaan leeyahay arrinta Igraan Soomaali oo dhan bay u taallaa xanuunkeedana Soomaali oo dhan inay ka xanuunsadaan waa wax waajib in ugu abaan leh maxaa jira ninkii aan wax dhalin waxbaa la dhashay ninkii kalena waxbuu dhalay tilaabo iyo booskan ku fadhiyo iyo awoodaan haysto intii aan ku awoodo waan ka qaadaya kulanka u horeeya oo sir Minneapolis aan la fariisto waxaan soo hordhigayaa cadaalad in loo helo walaashan oo cadeynaya walaashan Igraan future ba ka horeeyay waa dadka Soomaaliya u haray doona haddii maanta ay ignore garayno the future keena ignore garayna waxaan hil iyo hooba la garab taaganahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo Igraan Tahliil u raadinaysa cadaaladda gaar ahaan waxaan taageeraynaa garab taaganahay hil iyo hooba annagoo ku taageerayna xaq oo ku taageerayna qaab qabiil mudane ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble runtii dadka mas'uuliyiinta ee dhahay muxuu ahay arintaas xoogaa halla maartay maslaxo xaliina ma jiraan baashan waa in mas'uuliyadaasi waa in dad ay qaataan oo la yiraahdo qofkaas ayaa ka mas'uulaha gabadha maqnaashaheeda haddii ay dhimatana gabadh qofkaas ayaa ka mas'uulaha wax la qarqarinayo ma aha waa wax cad oo gabadha islaanta indhaha ka xiran oo kala ah waa in meel la saaraa yaan la soo qarqarin taas waa muhiim marka qof kasta xaafadu degan yahay kongareeska iyo sanadka telefoonada meesha ku qoran yihiin emailada ku qoran yihiin waa inay buuxsamaan weekan 100,000 oo qof inay wacdo waayo oo Soomaaliya ku dhigeen soo Igraan waa la dilay ama waa nooshahay hadday nooshahayna silci ku nooshahay Igraan physically mentally ku dhacay torture lagu sameeyay soo sida hadday loo sheegay George Floyd markii la dilay aan aragnay wallahi waa oo subaxi marka arkinin oo Afrikaan inta lagu dilay soo maxaa u maleynay gabar maanta qol la geystay oo Soomaali ah oo maskiin ah 10 nin ama 20 nin ama ay disho ama ay gurceen idinka maskaxdeen ku soo qaata Soomaali oo dhan wayna u istaagnaa qabiil ma jiro qof kasto annaga naga wada mid ah Soomaali waa aadayna nabad waa inaan ku aadnaa nabad ku joognaa nabad ku soo noqonaa Igraan Tahliil Faarax inay cadaalad hesho cid kasta oo dulman saan wada ogsoonahay warbaahinta Soomaaliyeed waxa hareeyay muranka ka dhashay cadaalad u raadinta Igraan Tahliil oo dadka Soomaaliyeed dhamaantood ay u kaceen sidii cadaalad looga helin lahaa oo qaali guhaad iyo waxaan leenahay aaba Dr. Tahliil Faarax waynu ku garab taaganahay markasta in cadaalad ay hesho Igraan Tahliil cid walba Soomaali arinkaasna way ka damqatay wayna ka xun yihiin nabad sugidii qofkii ka tirsanaa haddii nabadiisa la sugi waayay qof kale ma nabad sugayo ma u malaynayo koow gabadhu ilaa hadda aan maxkamad la heshay waxa hadda gabadhayadu qabiil kuma maqna qofna uma tuumayna laakiin tuunku waa jiraa laakiin ilaa la soo cadeeyo waxay nooga maqan tahay dawladda Soomaaliya hay'adii ay u shaqeynaysay intaasaan hadda nooga maqan tahay ayagu ha noo soo cadeeyaan ragga waxaan ka codsanaa madaxweynuhu horeeyo inuu Igraan Tahliil Faarax meel ku sheego oo ka hadla arinteeda iyo ka aamusnaani madaxweynuhu waa inuu ka hadla codsi waay
haddii kale haweenka Soomaaliyeed 1500 gabdhoodaan haya liiskooda wallahi waa kala noqonaynaa istiqlaalada cadaalad ha heshaanayna ikraam kaysku waa kays dheer waan dabagelaynaa kama harayno meelo badan buu faraha la geli doonaa shaqsi ma aha dawladda Soomaaliya waxaan leenahay ikraan cadaalad ha hesho in alle intaynu u qaadato waan daba taagnaanaynaa arrintaa waan idin mahadcelinayaa in alle inta ka soo qayb gasho caawa iyadoo axada iyadoo ognahay bari inay dulmiga qofka geysta ee intuu North America ka taga Soomaaliya geysta inuusan ku soo noqonin Mareykan oo uusan halkaan ku enjoy garaynin taas number 1 waxaan rabnaa si xallis jiray cilmiyeysan inaan kaysaska Soomaaliya ka dhacayo ay ugu horeysay Ikraan inaan ugu wada shaqeyno oo dulmiilayaasha dadka ku qalanaya Soomaaliya inaysan North America ku soo noqonin that's number 1 daan maalintii la waayay haddii aan wax ka qaban lahayn ama dawladda ay tilaabo qaadan lahayd cad maanta khilaafka taagan ma taagnaateen waa la isku dhageystay ilaa ay ka gaartay heer dawladdii aan isla heynay waxbay ka qaban doontaa cadaaladda waxbay ka qaban doontaa nabadda waxbay ka qaban doontaa in dadkii ay kala haaday oo wadamada kala galay ay isku soo laabtaan meeshaan rajo ka filaynay waxa dhacday 2 bilood in la isku dhageystay which is unfair oo kamay balanaska kooyay ikraan tahliil sidii ka helan lahayd cadaaladii runtii ikraan gabarna geekanaanki walanjeysidii aadisa walanjeysidii walaalisa walanjeysidii habartisa walanjeysidii ma oshinankaasi dhulkaha ku bahay gabarba ma dhalninankaas mis dhulkaha ku bahay dacwada dadkaan weydiinaynaa u dacwoonayna cadaaladda ka raadinaynaa waa dadka aan wax ku tabayna weeye marka waxaan leenahay war haddii la is ogaaday oo maaragtay wixii aysan qarsoonayn ha ku ekaysanina waxa qaldan iyo dembiga cidda dembiga lama wada gelin ha la soo qabto ha la keeno si ummadduna u qanacdo waddankuna u noqdo iyo mas-uuliyiintu wax la aamini karo ikraam sida odayaashu sheegeen sida aabaheed sheegay sida hooyada sheegtay nolol ama geeri meydkeeda ha la keeno ama nolol ha lagu keeno markastana cadaalad baan rabnaa laakiin qof uu taagnaa qarankiisa inuu u shaqeeyo maaragtay inuu haddana maanta inta la waayo annagoo gabdho ah annagoo hooyo ah waa ka daqnanaynaa waana ka tiiraanyanaynaa waalidkoodna waan uga tacsiyeynaynaa annagana waxaan tusaynaa inaan support ugu taaganahay in anagu waddankan qurbaha joogna aan dareensannahay aan rabno inaanu gabdhahayaga iyo wiilashayadaba cid walbaba maanta inta ku maqan gacan aan la garanaynin in ay xaqdooda helaan gabadha in dhibaato loo geystay raalli ahaadee Soomaalidu waxay dhahdaa madax meel ka dheeroo la salaaxa ma lahan dawladdu madax bay leedahay madaxdii ugu sarreysay markay hadashay hadalkeedu waxaa ka mid ahaa shakhsiga lagama qaadi karo meesha ra'iisul wasaaraha uu ka qaaday ama sirdoonka hal mar madaxweynuhu ummaddu muusa magac qaadin dhibaatada gabadha gaartay halkan ugu baroordiqi ugu dhigaynaa gabadheena Ikraan Tahliil Faarax oo ku maqan gacanta dawladda waxaan leeyahay Ikraan waa inay cadaalad heshaa Ikraan waa gabar yar waa anigoo dhowr 20 jir ah waxaan u baahanahay inay cadaalad heshaa gabadhanada insha Allah taala waxaan ka codsanaynaa dawladda gacanteeda ay ku maqan tahay annaga haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed mana hooyanayno mana harsanayno mana seexanayno maba seexa karno mana hooyo karno mana harsan karno ilaa ma aad Ikraan soo saartaan cadaaladeeda miiska ama qofka ku maqan tahay miiska ma aad soo saartaan ama aad meydkeedii keentaan ama aad nolosheedii keentaan annaga ma hooyanayno kolkees haddaad ka dhigaysiin waan idinla soconaynaa meesha waxaan isugu nimid gabadhan qaaraan waalid u nahay qaarna walaashayna in Ikraan Tahliil Faarax oo geesiyada u istaagtay qaranka waxa dadka ay u istaag waayeen hay'adaha ugu adag ka soo shaqeynaysay hadda 3 bilood ka badan maqan dawladda waxa way mas'uul bay ka tahay meesha laga afduubay shaqadeeda yahay aniga dawladda siyaasadda ma gelin hadda laakiin waxaan rabaa
inaan waxaan ka sugaynaa cadaalad waxaana ku faraxsanahay prime ministerkan cusub Roble waxaa moodaa roob ilaahay waddanka uu keenay inuu yahay Roble waa inaan garab istaagnaa marka waxaan leeyahay ilaahay cadaaladda ha u sahlo sidoo kalena waxaan rabaa in ra'iisul wasaare Roble aan ku dhiirigeliyo ugu bogaadiyo sida uu cadaaladda u garab taagan yahay Ikraan waxaan u rajaynaynaa inuu insha Allah ka gugaari doono teeda kalena waxaan ku darayaa in uu ilaahay wato kiiskan sababtoo ah waxaa la rabaa in ay ku inay maaragtay lagu tusiyo madaxda soo socota laftigeedu not only kuwa maanta jooga kuwa soo socota xataa inay ku cimri qaataan dhibaatada gees gabadhan falkeeda uu soo saari doono insha Allah waxaan rajaynayaa in cadaaladda la helo waana mahadsantihiin dhammaan inta kasoo qayb gashay caawa thank you very much waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo reer Minnesota ah waxaan uga tacsiyeenaynaa hadday dhimatay iyo hadday nooshahay labadaba waa u baahan tahay aabihii iyo hooyadii Ikraan Tahliil ayaan uga tacsiyeenaynaa waxaa caawa dhan lagu soo celceliyay oo meeshaan laga hadlay ra'iisul wasaaraha waxaa la yiri khayr Allah ku siiyo shaqada uu qabtay aniga waxaan qabaa inuusan shaqo qabanin sababtoo ah hadduu shaqo qaba lahaa ra'iisul wasaaraha mar hore lagu kala bixi lahaa arrinta no matter hadda it's not too late maxaa la yiraahdaa ra'iisul wasaaraha waxaan uga fadhinaa shaqada sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u soo dedejiyo oo runtii ku maqan dawladda Soomaaliya waxaa runtii nasiib darro ah oo nasiib darro aad u weyn ah maanta markaa fiirisaan idaacadaha markaa akhrisaan newspaperska inay ku qoran tahay ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii oo negotiation uga jira cadaalad u raadinta Ikraan waxaa dawladdu waxay negotiation ka gashay waxa waaye waa siyaasadda iyo awood qaybsiga ee ma ahan cadaaladda waxaan ka tirsanahay caafimaadka qolooyinka caafimaadka ee u shaqeeya Fairview-ga iyo M-Health-ga marka waxaan idin sheegayaa waa inaan Ikraan u hadalnaa inkastoo aan ahay habaryarteed waxaan leeyahay justice in loo helo Ikraan Tahliil Faarax injustice we stand against injustice we need justice for Ikraan Tahliil we need justice for Ikraan Tahliil we need justice for Ikraan now. No justice, no peace. No justice for Ikraan, no peace. ومهدسنتين السلام عليكم ورحمة الله. دق درجة Universal TV Minnesota.